Iman Khaliif gabadhii Firyahanada ahayd oo ay ka been sheegeen warbaahinta reer galbeedka ayaa ugu dambeyn waxa la soo helay sheekadeeda oo dhameystiran. Intaan ugu galin warbixintan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad ma soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto mahadsanid. Dad aad u fara badan ayaa ka falceliyay muuqaal aan soo dhigay maalin dhaweyd oo ku saabsanaa boxingkii dhexmaray ama feerkii dhexmaray laba gabdhood oo u kala dhashay dalalka Algeria iyo Talyaaniga, taas oo mid ka mid ah laga been sheegay jinsiyadeeda saxda ah oo lagu sheegay in ay tahay qof dumar ah laakiin horey u ahaan jirtay rag. Sheekadaasi been abuurka ah waxa warbaahinta ku faafiyay warbaahinta reer galbeedka oo aad uga xumaaday kadib markii laga badiyay gabadhii ka socotay dalka Talyaaniga daqiiqadihii ugu yaraana looga badiyay ciyaarta oo socota 46 ilbiriqsi oo kaliya, taas oo ahayd kulankii ugu dhaqsiyaha badnaa intii la ciyaarayay kulamada feerka oo dhaca. Taariikhda Iman Khaliif oo aan soo akhriyay ayaa waxa ay sheegaysaa in ay dhalatay 2 May sanadkii 1999 waa 25 jir ku dhalatay dalkeeda Algeria, waxa uuna dhirirkeeda gaarayaa 1.78, culeyskeeda waxa uu gaarayaa 66 kilogram. Iman ayaa ciyaartay 51 kulan oo feer ah intii ay ku jirtay ciyaaraha feerka oo idil. Waxaa laga badiyay kaliya 9 kulan oo ka mid ahaa 51daasi ciyaarood oo ay ciyaartay. Warbaahinta reer galbeedka oo aad u bumbuuniyay sheekada gabadhan, taasi oo ay ku tilmaameen in ay ahaan jirtay qof rag ah oo hadda laakiin iska dhigay qof dumar ah kuna dhex dhuuntay ciyaarihii feerka ee dumarka loo qabanayay ee Paris ka dhacayay sanadkan 2024 ayaa waxaa sheekadaasi soo afjaray qaar ka mid ah warbaahinta Carabta oo sheegay in gabadhan ay tahay gabar uu Ilaahay u abuuray qaabka ay hadda u taalo, taas oo ah in ay leedahay muuqaal iyo jirka ragga oo kale, taas oo ay ku sheegeen in uu ku badan yahay hormoonka ragga. Iman marka aad fiiriso muuqaal ahaan waxay u eg tahay qof rag ah oo waliba marka aad wajigeeda si fiican u eegto waxaad u maleysaa in uu nin yahay ama uu wiil uu yahay, balse marka aad nolosheeda saxda ah akhriso ayaad dareemi kartaa in ay tahay gabar una dhalatay gabarnimada ay hadda ku ciyaarto oo ay garoomada feerka ugu jirto. Sawiradeedii hore qaar ka mid ah oo warbaahinta lala wadaagay ayaa waxa ay muujinayaan in gabadhan markii yareyd ay sidaan iska ahayd oo qaabka ragga ay u dhaqmi jirtay, sidoo kalena muuqaalka ragga oo kale ay lahayd. 9 kulan ayaa laga adkaaday Iman Khaliif 51 kulan oo ay ciyaartay ciyaaraha boxingka ama feerka. Gabadhii ugu dambeysay oo ay la feertanto taasi oo ka badisa ayaa waxa ay u dhalatay dalka Ireland, waxaana ay ka badisay kulankii ugu dambeeyay ee 9aad ee Iman laga guuleysto garoomadana looga adkaado. Gabadhaasi u dhalatay Ireland waxa ay sheegtay in ay been abuur tahay waxba kama jiraan ay ku tilmaamtay sheekada gabadhan laga sameeyay, taas oo ah in markeedii hore ay ahayd qof rag ah haddana ay iska dhigtay qof dumar ah. Sheekadaasi oo ay sheegtay in warbaahinta reer galbeedka ay ka dambeeyaan aadna ay u bumbuuninayaan si gabadhan ay sumcadda ugu dilaan. Waxa ay tiri gabadhan intii aan garoonka ku wada jirnay oo aan wada feertamaynay maanan arkin wax ka baxsan awoodda dumarka oo kale oo aniga iyo iyada aan ku wada ciyaaraynay. Ma jirto awood dheeri ah ama awood u dhigan tan ragga oo kale oo ay la soo baxday Iman Khaliif intii aan wada ciyaaraynay. Waxaana filayaa in kulamada u haray iyo kulamadii hore ay u ciyaartay oo dhan ay sidaasi u ciyaari jirtay. Waa sax in aad awood isticmaalayso marka aad garoomada soo gasho, sababtoo ah qof walba waxa uu ku tashanayaa in uu guusha isaga qaado, ay tiri gabadhaasi u dhalatay Ireland oo ahayd gabadhii ugu dambeysay ee Iman Khaliif ka badisa. Gabadhaasi ayaa soo afjartay beentii iyo waliba propagandadii ay fidiyeen warbaahinta reer galbeedka, taas oo ay kaga been abuurteen gabadha lagu magacaabo Iman Khaliif ee Firyahanada ah. Sidoo kale dalka ay ka soo jeedo ee Algeria, Iman Khaliif waa 100% dad Islaam ah oo ma dhici karto in ay u soo dirsadaan ciyaaraha boxingka ama feerka ama ciyaaraha kaleba in ay uga qayb galaan qof jinsi ahaan rag ahaan jiray oo dumar iska dhigay. Kulamo badan oo ciyaareed ah oo adduunka dacaladiisa ka kala dhacay waqtiyo kala duwanna dhacay ayaa laga diiwaan geliyay in rag iska dhigay dumar ay ka qayb galeen ciyaarahaasi ay dalalkoodana ku mateleen. Iman Khaliif ayaa noqotay gabadhii loo diiwaan geliyay iskoorka ah in ay waqtiga ugu yar uguna dhaqsiyaha badan ciyaarta kaga saarto qofkii iyada ka soo horjeeday. Iskoorkaasina waa mid iyada u xiran, waxaana iskoorkaasi ay ku dhigtay
Imaan Khaliif gabadhii Firyahanada ahayd oo ay ka been sheegeen warbaahinta reer galbeedka ayaa ugu dambeyn waxaa la soo helay sheekadeeda oo dhameystiran. Intaan ugu gudagalin warbixintan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad ma soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto mahadsanid. Dad aad u fara badan ayaa ka falceliyay muuqaal aan soo dhigay maalin dhaweyd oo ku saabsanaa boxingkii dhexmaray ama feerkii dhexmaray laba gabdhood oo u kala dhashay dalalka Algeria iyo Talyaaniga, taas oo mid ka mid ah laga been sheegay jinsiyadeeda saxda ah oo lagu sheegay in ay tahay qof dumar ah laakiin horey u ahaan jirtay rag. Sheekadaasi been abuurka ah waxaa warbaahinta ku faafiyay warbaahinta reer galbeedka oo aad uga xumaaday kadib markii laga badiyay gabadhii ka socotay dalka Talyaaniga daqiiqadihii ugu yaraana looga badiyay ciyaarta oo socota 46 ilbiriqsi oo kaliya, taas oo ahayd kulankii ugu dhaqsiyaha badnaa intii la ciyaarayay kulamada feerka oo dhaca. Taariikhda Imaan Khaliif oo aan soo akhriyay ayaa waxa ay sheegaysaa in ay dhalatay 2 May sanadkii 1999, waa 25 jir ku dhalatay dalkeeda Algeria, waxa uuna dhirirkeeda gaarayaa 1.78, culeyskeeda waxa uu gaarayaa 66 kilogram. Imaan ayaa ciyaartay 51 kulan oo feer ah intii ay ku jirtay ciyaaraha feerka oo idil. Waxaa laga badiyay kaliya 9 kulan oo ka mid ahaa 51daasi ciyaarood oo ay ciyaartay. Warbaahinta reer galbeedka oo aad u bumbuuniyay sheekada gabadhan, taasi oo ay ku tilmaameen in ay ahaan jirtay qof rag ah oo hadda laakiin iska dhigay qof dumar ah kuna dhex dhuuntay ciyaarihii feerka ee dumarka loo qabanayay ee Paris ka dhacayay sanadkan 2024, ayaa waxaa sheekadaasi soo afjaray qaar ka mid ah warbaahinta Carabta oo sheegay in gabadhan ay tahay gabar uu Ilaahay u abuuray qaabka ay hadda u taalo, taas oo ah in ay leedahay muuqaal iyo jirka ragga oo kale, taas oo ay ku sheegeen in uu ku badan yahay hormoonka ragga. Imaan marka aad fiiriso muuqaal ahaan waxay u eg tahay qof rag ah oo waliba marka aad wajigeeda si fiican u eegto waxaad u maleysaa in uu nin yahay ama uu wiil uu yahay, balse marka aad nolosheeda saxda ah akhriso ayaad dareemi kartaa in ay tahay gabar una dhalatay gabarnimada ay hadda ku ciyaarto oo ay garoomada feerka ugu jirto. Sawiradeedii hore qaar ka mid ah oo warbaahinta lala wadaagay ayaa waxa ay muujinayaan in gabadhan markii yareyd ay sidaan iska ahayd oo qaabka ragga ay u dhaqmi jirtay, sidoo kalena muuqaalka ragga oo kale ay lahayd. 9 kulan ayaa laga adkaaday Imaan Khaliif 51 kulan oo ay ciyaartay ciyaaraha boxingka ama feerka. Gabadhii ugu dambeysay oo ay la feertanto taasi oo ka badisa ayaa waxa ay u dhalatay dalka Ireland, waxaana ay ka badisay kulankii ugu dambeeyay ee 9aad ee Imaan laga guuleysto garoomadana looga adkaado. Gabadhaasi u dhalatay Ireland waxa ay sheegtay in ay been abuur tahay waxba kama jiraan ay ku tilmaamtay sheekada gabadhan laga sameeyay, taas oo ah in markeedii hore ay ahayd qof rag ah haddana ay iska dhigtay qof dumar ah. Sheekadaasi oo ay sheegtay in warbaahinta reer galbeedka ay ka dambeeyaan aadna ay u bumbuuninayaan si gabadhan ay sumcadda ugu dilaan. Waxa ay tiri gabadhan, intii aan garoonka ku wada jirnay oo aan wada feertamaynay maanan arkin wax ka baxsan awoodda dumarka oo kale oo aniga iyo iyada aan ku wada ciyaaraynay. Ma jirto awood dheeri ah ama awood u dhigan tan ragga oo kale oo ay la soo baxday Imaan Khaliif intii aan wada ciyaaraynay. Waxaana filayaa in kulamada u haray iyo kulamadii hore ay u ciyaartay oo dhan ay sidaasi u ciyaari jirtay. Waa sax in aad awood isticmaalayso marka aad garoomada soo gasho, sababtoo ah qof walba waxa uu ku tashanayaa in uu guusha isaga qaado, ay tiri gabadhaasi u dhalatay Ireland oo ahayd gabadhii ugu dambeysay ee Imaan Khaliif ka badisa. Gabadhaasi ayaa soo afjartay beentii iyo waliba propagandadii ay fidiyeen warbaahinta reer galbeedka, taas oo ay kaga been abuurteen gabadha lagu magacaabo Imaan Khaliif ee Firyahanada ah. Sidoo kale dalka ay ka soo jeedo ee Algeria, Imaan Khaliif waa 100% dad Islaam ah oo ma dhici karto in ay u soo dirsadaan ciyaaraha boxingka ama feerka ama ciyaaraha kaleba in ay uga qayb galaan qof jinsi ahaan rag ahaan jiray oo dumar iska dhigay. Kulamo badan oo ciyaareed ah oo adduunka dacaladiisa ka kala dhacay waqtiyo kala duwanna dhacay ayaa laga diiwaan geliyay in rag iska dhigay dumar ay ka qayb galeen ciyaarahaasi ay dalalkoodana ku mateleen. Imaan Khaliif ayaa noqotay gabadhii loo diiwaan geliyay iskoorka ah in ay waqtiga ugu yar uguna dhaqsiyaha badan ciyaarta kaga saarto qofkii iyada ka soo horjeeday. Iskoorkaasina waa mid iyada u xiran, waxaana iskoorkaasi ay ku dhigtay 46 ilbiriqsi oo kaliya.